maanta taariikhdu waa 17 laakiin waxaan ku duubayaa halkan tix yar oo aan shalay oo 16 ay ahayd aan qoray. taariikhdu waa 17kii sida hore kuu soo sheegay October 2019. waxaan ku duubi doonaa halkan tix yar oo caruurta Soomaalida ah oo dhibaataysan aan ku cabiri doono. anigu dhibanaanaho walaal dhaawac baa i gaaray, lafta dhabarkaa i jaban, dhib iyo ciil baan qabaa, barkeedhudii hooyaday walaalkii ila dhashiyo dhabtii way necab yihiin. wallee runtu dhiirane daboolka haddaan ka dhigo anigu waxba maanan dhimin. wallee runtu dhiirane daboolka haddaan ka dhigo anigu waxba maanan dhimin. adduunka kolkaan dhex imid hooyiya aabba isku dhacay. adduunka kolkaan dhex imid hooyiya aabba isku dhacay. kolkaa dhaawac baa i gaaray, dhibaataa igu idlaatay, dhulkiibaa igu yaraaday, meheli ruux ii dhibdhaama dhexdii urkay daloola. waxaanahay dhaawac liita, mehelin dhuuniga la quuto, dhar la xidhaana iska daaba. waxaanahay dhibano toos ah, melihi ruux ii dhaqaaqa, dhabtii ehel iyo xigaalo dhulkiibaa ii madow. waxaa dhinacay ku yaala masaajida dhirir qurxoon leh, misana dhamac iyo ballaar leh, dhalaal iyo wada iftiin ah, wax walbana loo dhameeyey. dad doohan ayaa dhex jooga, salaad baa lagu dhigaa, laakiin dhibta kama naxaan, ma oga dhaawacna gaaray. waddanku dowlad ma leh ilmaha caawisa, laakiin waxaa jira bulshadu inay ilmaha caawiyaan. waxay ku mashquulsan yihiin daara dheer oo masaajida inay dhisaan. dadkiibaana caruurtoodii ayaa waxay u dhammaanaysaa gaajo oo derbiyada jiifa. waxaan ka hadlayaa caruurta derbi jiifka ee Soomaaliyeed. qof kastoo videoga uu soo gaaro waxaan ka codsanayaa inuu YouTube-kayga subscribe ii saaro oo siina share gareeyo. waxaan ugu hiilinayo cabirey xanuunka aan ka dareemayo caruurta Soomaaliyeed. waxaan muujinayay dhibka haya. waad mahadsantihiin.